kulan oo la sanbawdiyaal halkani waa Juba TV kusoo dhawaada wararka gudaha iyo daafaca caalamka laga soo gaaray aniga Iftaax Durdur ayaa idin warami doona qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo kulamo wada tashi ah ka bilaabay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta uu ambabaxay dalka dibadiisa safaaradda Soomaaliya ee dalka Jarmalka oo war ka soo saartay xaaladda dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Jarmalka dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka oo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya labada dowladood safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiisan doona dalka Hindiya oo laga gudoomay warqadaha aqoonsiga ee safiirnimo baraadka dibadda ee warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona dowladda Sacuudiga oo qorsheynaysa in 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah ku maalgashto dalka Pakistan iyo qaramada midoobay oo xaalad bini'aadanimo ka soo saartay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena aad ku daawan doontaan iminka soo diyaar garoowa iyagoo faahfaahsan